محمد عليه الصلاة والسلام قال انت هشيسay waxay tiri waa dilayna go'aana baa la qaatay qabaa'ilka aanu qaybino 10 inaan hala soo saaro waa kaasi dabatana seefta lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiiga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan laba dagaalami karaan waxa maktooda ay aqbali doonaan leysna hayna dhaafo maktana hala qaato ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu faray inuu hijroodo nabi maxamed wixii awoodiisa ama awood bani aadam wixii ahaayo dhan buu sugay sagii abi bakar laba neef oo la fuulabay si meel sii daajisteen oo dhigteen min gaala ayay kireysteen oo dhul mareena oo wadooyinka kala yaqaana cunay xidhxidheen safarkaasi ay ku sii gali karaan goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxay guryihii si ay u raad gataan buur bay fuuleen oo adaad saxaara lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayaa meeshaad ka baxday may u bixinba xaggii saxaaree buuraleyda ay u baxeen koonfura iyadoo madiina ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabana koonfur bay qabteen si raadraaco xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helinay iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum assalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu 3 habeen oo isku xiga god ku jireen godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abi bakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii wana arkay ما ظنك باثنين الله ثالثهما من وجود ومحاضر ما ننسى الله بقى لك سبحيه لا تحزن لا بقى له ومعود يمل ما قول درستاري همرغوني قلت لك بحين لحد مركي مريين هي ورق عربي مركي اي ويدي هي وحي بلن قاطع نمكي حيا او ميتا مدح النبي محمد يا ابي بكر عندي كان وقال هلا قال عصاصين مدح كستا laga siinayo arabtii dagaalyahanada hay'ad keenihii ay inuu iska joogtaa warkii soo gaaray waa ka tilmaamaya saxaabiga la oran jiray هذا الصحابه كمida al-Ashja'i ninkii ahaa Suraqa ibn Malik al-Ashja'i wuxuu leeyahay anigoo naabigii reerkayga halkii lagu shiri jiray anigoo fadhiya ayaa mid soo galay guuram ka soo xidhay halka laba nin baa sii socday waan u malaynayo ma uraa illa Muhammad iyo saaxiibkiina yimaayeen cid kale u malaynayo markaasaan idinku war waxba ma adaragay war hebel iyo hebel waxba ma adaragay iska fadhiyo waxaan salahaabuu yiri bigooda yar cid kula qaybsanayna labada boqol halad kaliya heshiis tara jaariyad hoos ka diray wuxuu faraskii iyo warqihii soo qabo faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yiri markaan iyaga ka baxay gurigii tagay waxaan silmidu warka hadaad qaadato abceed markay ku dhacdo walaa meelaha laga aqiyo ciidan inta soo galiya jiiday guulay waxa soo dhaw wuxuu sameeynaya digooda yaa cid kula qaybsanay adadu qaaditay xoolaha markii ilaahay dhulka la gooyay faraskiisii ee soo toobi weydayna waxay ku noqotay mas'ala waahida baa ka hadalnaa nabi maxamed وحشان بقولك كيلومتر كير قوت يطون مالمود بسعود مكية مدينة تقول حيصة دور يطون مالمود بلوغيني وقد قلي وهرادي ولوغيني وسعوني والعرياني وبقي مركا لنا هبين قرى إلهين في دوفيي مكاين تلقى دوفيي لقيا محي بيت المقدس لقى دوفيي حقا لقبت فيه السمدة لقبت فيه maxaa ku jira marka ilaahay oo kale markaan gaaladu bay xubshada wado inta marka laga la boodo in la yiraahdo Madiina fariiso maxaa bay ku daba socdaan waxay dhahdaan ka hore waa maxal tashriif linuriyahu min ayatina al-kubra wala sharfa nabi Muhammad oo aayaadka Allah soo arko ilaahay wuxuu biso waxa ku jira waa tashriif baalay waa waxa la rabo inaynu ku dayano إنك الله إنه يتحمل إلهي أودي موه إلهي دكتور كم قال الله قالوا لما يدينه وعندما الله أما قصب كل سلامه وسلام الله وهو على كل شيء قدير بيده الملك أليس الله بعزيز الانتقام أليس الله بكاف عبده إلهي القرآن كما قلت المامي والإلهي ميان وحوال بأودي ميان قعنتي سوحوال ما كتشري ميان وحوال بصمي كرم طبعا وحوال بصمي كرم
imse qoom baa ilaahay dhulka la gooyey ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qaar uu kor u qaado dhulka inta lala gooyey haddana intay soo socdeen warmo dhagxan lagu garaacay naarta laga keenay dabeetana dhulka lagu abuuray qowmu luud qaar baa alla tilmaamayay sheeganaya ana rabbukum ulaclaa ya maa calimtu lakum min ilaahin hayri oo badda inta ilaahay kala jeexay markuu soo galay la isugu dhirbaxay oo ilaa hadda maydkiisa yaalla oo ilaahay yidhi baktigaagaa reebaya si aad dadka dambe waana ugu noqoto qaar baa ilaahay inoo tilmaamay lagu qayliyey oo qaylo ku dhintay kaanama icjaasu nakhlin khaawiya qaar baa alla tilmaamaya sayxa qaar baa alla tilmaamaya matar uu lagu qarriyey yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamay ummad dhan oo la baabi'iyey macnaheedu waa maxay macnuhu waxa weeyaan kow qofka mu'minka wuxuu rumaysay war adduunkan waxaan ilaahay rabini kama dhaco waxaan alla idmini ma dhacaan nin xoog weeye nin xoog yaritoona ma jiro laakiin innaga layna itixaamaya ilaahay waa awoodi karaya diintiisa inuu u gargaaro biduuni ayi shay kun fayakuun baa awoodiisa waida araada shay-an an yaquula lahu hadduu wax doonaya ilahay wuxuu yidhahdaa kun fayakuun uu ahaanaya laakiin waxay culammadu yidhahdaan innagaa ku jirna mawdicu limtixaan idan adigaa lagaa rabaa mushkilad kastoo kaa hor timaada imtixaanka ma ku guulaysanaysaa mise waad ku dhacaysaa adaa lagaa rabaa mas'alo kasta ma sax baad uga jawaabtay mise qalad baad uga jawaabtay adaa lagaa rabaa mashaakilka soo baxay oo dhan inaad si saxa uga jawaabtid saa daraaddeed ayuu rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuuna leeyahay walaa tahinu ha liidanina oo walaa taxzanuu